bal eeg waa godkeedii aan gudaha u galno. Laakiin walaala Shantii, haddii ayna hesho dhibaato weyn ayayna ku dhacaynaa. Waan baqayaa ee hal shay sameey. Aniga inta ayaan kuugu sugayaa. Waad gelaysaa oo baqalida ka soo qaadaysaa halkaas. Oo baantii qaaliyow, ma waxaan kuula muuqdaa nacas? Waxaa rabtaa keligayga inaan gudaha galo oo nafteyda khatar geliyo. Kadibna marka aad taajir noqotid waxaad qaybinaysaa lacagta. Ma dhici karto. Waa inaan gudaha isku raacnaa. Haye marka soo bax aan gudaha galnay. Aan aragnay wixii dhici doono. Kadib waxay bilaabeen inay godkii galaan. Markay waxyar socdeen waxay arkeen saaxiradii oo nasanaysa iyo baqaladii qafiskeeda wuxuu yaalay meel u dhow. Fiiri baantiyow, wataasaa saaxiradii iyo baqalidii. Waa inaan soo qaadanaa baqalida oo si tartiib ah meeshaan uga dhaqaaqnaa. Adiga u tag oo si tartiib ah baqalida nooga soo qaad. Alla Ilaahayow i caawi. Kadib si tartiib ah ayuu meeshii u tegay wuxuuna ka soo qaaday baqalidii. Soo carar. Hoosheenii way noo dhammaataye. Soo carar. Hoosheenii way noo dhammaatee. Carar oo noloshaada badbaadso. Kadib baantii meeshii ayuu iskaga cararay. Alla doqonyow, maxaa qaylo u samaynaysaa? Ma aamusi kartid miyaa? Doqonkan wuxuu noo keenayaa dhimasho. Kadib saaxiradii ayaa soo kacday markay maqashay baantii qayladiisa. Kadibna way walwashay markii ay weysay baqalidii. Baqalideydii aaway. Hadda maxaan sameeyaa? Saaxiradii way soo kacday. Sidee baan meeshaan uga baxsadaa? Si lama filaan ah, saaxiradii waxay indhaheeda qabteen Shantii. Wariyaa adiga yaa tahay? Aawa baqalideydii. Shantii wuxuu yidhi, hadda maxaan sameeyaa? Waa inaan meeshaan iskaga cararaa. Kadibna wuu cararay. Wariyaa fuleeyahow, xaggeed u cararaysaa? Kuma ogolaanayo inaad duurkan ka baxdid. Carar oo noloshaada badbaadso. Saaxiradii way ku soo daba carartay. Si dhaqso leh ayuu ku gaaray tuuladii meeshii uu baantii isku qariyay oo mar hore guriga ahayd. Wariyaa Shantii, isoo fiiri. Dhinacaan imow. Inta ayaan joogaaye. Si dhaqso leh Shantii wuxuu ka cararay gurigii uu baantii isku qarinayay. Dhibaato badan kadib. Wariyaa baantiyow, kadib markaan ku iri la carar baqalida, maxaad qayli u samaysay? Hadda ku farax. Sixirooleydii wayna aragtay markaan cararaynay wayna soo daba raacday. Hadda maxaan sameeyaa? Waan baqayaa. Alla Ilaahayow. Shantiyow, baqalidan aad soo qaado. Aniga gurigayga ayaan iska aadayaa. Xaaskayga mar hore ayay ii sheegtay. Waxayna igu tiri saaxiibka maalin ayuu ku gelin doonaa dhibaato. Waxaan rajayn lahaa inaan mar hore hadalkeeda qaato. Allah, hadda maxaan samayn doonaa? War fuleeyahow oohinta jooji. Waxaani waa wax qornaa un. Ayadoo raadinaysa ayay meeshii timaaday saaxiradii. Tuugiinyahow idin aaway. Idiima cafin doono. Ii soo celiya baqalideyda. Haddiid kale waxaad weyn doontiin noloshiina labadiinaba. Waxay ka fiirinayeen meeshii ay isku qariyeen. Kadibna aad ayay u cabsadeen. Walaal Shantii, aniga waxaan qabaa in la siiyo baqalideeda. Haddii kale nolosha ayayna dhaafin doontaa. Doqonyahow aamus. Wax walba waad burburinaysaa. Waxba naguma samayn karta sixiroolaydaas intaan haysana baqalida, waayo waxay sidaa nafteeda. Kadib baqalidii waxay bilowday inay xoog u qayliso. Ilaahayow, sixiroolaydan inta ayay soo fiirinaysaa. Haddayna aragtana nama dhaafi doonto. Waxay la qaylinaysaa. Jooji qaylida. Sixirooleydii waxay tiri, codkan waxaa leh baqalideyda. Waxaan u malaynayaa inay meeshaan ka agdhowdahay. Kadibna indhaheeda waxay qabteen meeshii ay ku dhuumanayeen baantii iyo Shantii. Kadibna sixirooleydii meeshii ay ku dhuumanayeen ayay gashay. Wariyaada sideed ku keenteen inaa baqalideyda xadaan? Baqalideyda ii soo celiya. Haddii kale waa idin cunayaa. Saaxiradii qaaliga aheeday, qaado baqalidaada. Annagana iska kaaya dhaaf. Ma waalan tahay? Ma waxaad u malaynaysaa haddii aan siina baqalida iyada in ay naga tegaysa annaga oo nool?
maya hadda ma siin karno baqalida iyada. Idhagaysa saaxiraday, waan ogahay inay naftaada ku dhex jirto baqalidan. Haddaad horey hal tilaabo u soo qaaddo baqalidan qoorta ayaan ka jebinayaa. Maya, sidaas ha samaynin, dibna ha u geysanin baqalideyda. Sidaa dhahda waan samaynayaa. Haye, halkan waa heshiis. Hadda waa caadi, waa inaa samaysaa sida aan ku dhaho. Walaal Santii, inaan sidaan ku samayno ma ahan. Haddii ay baqalideeda hesho, nama dhaafi doonto. Baantii, waxba ma dhacayo. Sixirooleye waxaan u baahanahay 500 oo dahab ah. Waayahay, waxaa dhahda waan samaynayaa. Kadib sixirooleydii waxay siisay 500 iyadoo isticmaalaysa sixirkeeda. Baantii arag, waxaan noqonay taajiriin maanta waa baashaal. Baantii ayuu ku dhahay maxaa kale ayaad rabtaa aan weydiisanaa. Gaari ayaa inoo weydiinayaa. Baantii wuxuu yidhi aniga kuguma raacsani. Tan xitaa ma rabo inaan sidaan taajir ku noqono. Markiiba baantii xaaskiisa ayaa meesha soo gashay. Intuu nalkan xooga badan ka imaanayaa, kadibna waxay fiirisay daaqadda wayna yaabtay. Waxaanu dahab ah sallama filaan waxay aragtay sixirooleydii. Ilaahayow, maxay ka qabanaysaa saaxiradan meesha? Fadlan i caawi. Waxay rabtay inay ninkeeda badbaadiso. Kadib markii ay soo gashay gudaha, wuxuu yidhi yaray meenaa meeshan maxaa ka qabanaysaa? Inaad timaado ma ahayn. Waad ku saxsan tahay taasi. Waan ogaa maalin inaad dhib weyn geli doonto damac xumadaada darteeda. Dhib ma lahan, wax walba way hagaagayaan. Cafis ayaan weydiisanaynaa. Fadlan cafis sixirooley, ma rabno dahabkaaga qaado, baqalidaadana qaado, annagana dhaaf. Waryaa ma waalatay, waxaa qiyaamaysaa hantida aad haysatid. Taasi ma dhici karto. Adiga waad bixi kartaa haddaad rabtid, laakiin aniga waxaan rabaa inaan samaysto dahab badan. Haye, annaga ma rabno dahabkan. Sixirooleyna fasax annaga waan baxaynaa ee qaada dahabkaaga. Weli waqti ayaa kuu hare ee baqalideydii isii noloshaada waan kuu dhaafayaaye. Sixirooley maxaa nolosheedii ii dhaaftaa? Noloshaada ayaa gacanteyda ku jirtee. Isla markii baqalidii way duushay iyadoo ka baxsanaysa gacmihii Santii, baalasheeda ayay furtay. Alla baqalideyda ii soo noqo. Sixirooleydina way qosashay ha. Sixirooleyey dahabkaada qaada anigana iska kay fasax. Maya waa qaladkaaga cinqaabtiisa inaad martaa. Waa dhintay sidaan. Baantii noloshiisa wuxuu badbaadiyey xilli fiican, laakiin Santii noloshiisa wuxuu ku waayay xumaan darteeda. Halkaas ayay ku dhammaatay sheekadeennii.